labadii marxuum ee lagu dilay Muqdisho oo aad u jeedaan sawiradooda oo falcelinno kala duwan ay ka dhasheen sida loo aasayo xilli mid ka mid ah marxuumiintani diyaarad loo saaray Hargeysa halka kan kaleetana lagu reebay Muqdisho maxay tahay sababta loo kala reebay labadani marxuum oo ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliya iyo khilaaf xooggan oo ka dhashay arintani ayaan daawada muuqaalkan kugula wadaagi doonaa laakiin intaan u guda galin muuqaalka like saara si share garay oo la wadaag saaxiibada bogana follow soo mahadsanida aynu ku bilownay daawadayaal intiini la socotay toddobaadkii ina soo weedaartay waxaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho lagu dilay labadani marxuum oo ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliya qaasatan maamulka Somaliland waxaana raggani oo ka soo jeeda Hargeysa lagu dilay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa ay wararku ay sheegayaan in ay ahaayeen ilaalada qaaska ah ee xildhibaanad Gobson oo ka mid ah baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya waxaana labadani shakhsi oo lagu dilay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho khilaaf xooggan uu ka dhashay habka marxuumiintani loo aasayo xilli mid ka mid ah marxuumiinta loo qaaday gudaha magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland isla markaana garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde laga saaray diyaarad qaas ah si ay uga dejiso halkaasi halka marxuumka kaleeto oo isla deegaanadaasi ka soo jeedo lagu reebay meedkiisa magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana la sheegay in halkani lagu aasayo taas oo dhalisay khilaaf hor leh oo ka dhex bilowday maamulka Somaliland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa ayna siyaasiyiin fara badan oo ka soo jeeda gobolada waqooyi ay ku andacoonayaan in marxuumka la reebay meedkiisa isla markaana la sheegay in Muqdisho lagu aasayo sababta loo reebay ay tahay in cadeemo laga helayo dadka dilay ah taasina ay keentay in meedkiisa lagu hakiyo gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho markaana marxuumka kaleeto oo cadeemihiisa oo idin la baabi'iyay la doonayo in loo diro magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland waxa ayna ku doodeen maamulka Somaliland qaar ka mid ah siyaasiyiintiisa cadaayayaasha ah in arintani ay dhalin karto khilaaf xooggan oo ka dhaxeeya dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland isla markaana ay tallaabo adag ka bixin doonaan arintani maamulka Somaliland waxaana arintani ay noqonaysaa mid kaleeto oo ka sii daraysa khilaafka ka dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kaleeto maamulka Somaliland toddobaadkii la soo dhaafay waxaa Muqdisho lagu dilay labadani qofood oo ka soo jeeda Somaliland kuwaasi oo dilkeedu ay ka dambeeyeen rag ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya sida ay ku andacoonayaan maamulka Somaliland marxuum Warsame Axmed Warsame oo maalintii la soo dhaafay askar ka tirsan ciidanka Soomaaliya ay ku toogteen Muqdisho ayaa saaka lagu aasaya xawaalaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay maamulka Somaliland halka marxuum Umar Ismaaciil oo ka tirsanaa ciidanka ilaalada xildhibaanad Gobson oo isaguna maalmo ka hor Muqdisho lagu dilay saakay loo soo qaaday dhanka iyo Hargeysa waxa ay wararku ay sheegayaan in gacan ku dhiiglihii ahna eedeysanaha ku eedeysan dilka Warsame Axmed Warsame gacanta lagu dhigay halka sidoo kaleetana aan weli gacanta lagu soo dhigin oo lagu raajoogo raggii ka dambeeyay dilka marxuum Umar Ismaaciil oo ka mid ahaa ilaalada xildhibaanad Gobson oo ka tirsan baarlamaanka 11aad ee dalka daawade wixii war ah oo ku soo kordho dhacdadani muuqaalada kanixiga ayaan idin kula wadaagi doonaa mahadsanidin